waxaa si aad ah u sii kordhaya walaaca shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan heshiiska qarsoodiga ah ee madaxweyne Farmaajo si hoose ah ula galay dhigiisa Uhuru Kenyatta. Warbixin ku saabsan kiiska badda Soomaaliya oo maalinnimadii shalay u soo bandhignay shacabka Soomaaliyeed kadib waxaa si aad ah isu soo tarayay shaki weyn iyo astaamo muujinaya in madaxweyne Farmaajo uu u muuqdo mid ka tanaasulay dacwadda badda ee Kenya nagala dhaxaysay ee ka socotay maxkamadda ICJ. Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa weli wax war ah ka soo saarin arrinka badda Soomaaliya iyo heshiiska qarsoodiga ah uu madaxweyne Farmaajo la galay Uhuru Kenyatta. Dowladda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay qarinaysaa kiiska badda iyo heshiisyada ay qarsoodiga ku gashay si la mid ah sida ay u qarisay dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo hore madaxweyne Farmaajo si sharci darro ah ugu dhiibay Itoobiya, iyadoo maalmo yar kadib dowladda Itoobiya shaaca ka qaaday in madaxweyne Farmaajo uu u soo gacan geliyay Cabdikariin Qalbi Dhagax. Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya, Kayleigh Carter, ayaa sheegay inuu ka dalbaday madaxweyne Farmaajo in kiiska dacwadda badda lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda ICJ. Waraysiga safiirka uu siiyay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayuu ku sheegay inuu tagay magaalada Muqdisho ayna ku kulmeen isaga iyo Farmaajo, uuna u sheegay inuu Farmaajo isaga baxo kiiska maxkamadda. Kulanka qarsoodiga ah ee dhex maray Farmaajo iyo Kayleigh Carter wuxuu ku saabsanaa kiiska dacwadda badda, balse nasiib daro madaxda sare ee dalka waxay qarinayaan xaqiiqda, mana ahan kuwo hor imaanaya shacabka Soomaaliyeed ee ka walacsan mustaqbalka kiiska badda. Garyaqaanada arrimahan ku xeel dheer waxay sheegayaan haddii kiiska dacwadda badda dib loo dhigay ilaa bisha Juun sanadda 2020, taasi micnaheedu yahay inaan wax rajo ah u muuqan shacabka Soomaaliyeed, maadaama kiiska la siyaasadeeyay madaxweyne Farmaajo ma ka tanaasulay badda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo muxuu u galay heshiis qarsoodi ah oo ku ogolaanayo in dacwadda badda Soomaaliya dib loo dhigo si doorashada Soomaaliya dib loogu dhigo darteed. Su'aalahan ayaa ah kuwa ugu badan ee ka imaanaya shacabka Soomaaliyeed.